السلام عليكم أصحابتي القالقة وايد السلام ميل والبا joogtiin maanta waxaan noo wadaa wax kale oo cusub waxaan noo wadaa bahalkan waxa la dhahaa qosan kool wadankan joogo qosan kool la dhahaa anaan sameysanaynaa maanta waa soo dhaqo soo nadiifiyay sidan salaatada markay kor wasaq ka tahay camal loo nadiifiyo gadaasha qaybta dambe looga jaro waa soo dildilaaciyay xoogo meeshan dabada damban ka soo dildilaaciyay waxaan ku sameysan doonaa nadiif waa soo nadiifiyay waa fiiq oo baal yar yar oo sidan salaatada u eg waaye marka aad iyo aad u fiican yahay vitamin C ka buuxo marka qabowga oo kale waa aad u fiican yahay dan qabowga ku jirnaa hadda winter ku jirnaa marka aad iyo aad u fiican yahay bahalkan sida loo sameeyaa maanta baranayna insha Allah waxaan haysanaa basal hilib shiidan tooni kabsar iyo cusbo iyo jabka subagan ku sameysan doona insha Allah iyo xawaash labadaas xawaash kaamun iyo filfil waataas marka waxaan soo dhalaalsanaynaa batarka subaga macnaha subaga soo dhalaalsanaynaa asagana biyo kulul ku karinaynaa biyo markay karkaraan aan ku shubayaa biyo ku soo karkarinayaa waa kana hadda hilibkii basashii isku soo daray basashii markaan xoogaa shiila hilibka shiidna ku daray filfishan ku daray wax yar filfil ku daray iyo wax yar oo kaamun xawaash dhudhub ama kaamun saa u taqaanid marka waa kana kaamunkana ku darayaa asagana biyaha ku soo kariyo biyaha markay karkaraan aan ku shubay wax yar cusbinta ku dartida goonu soo karinaya asaga bahalkan marka goonu soo karisid oo meesha qudaartan iyo hilibkan isku soo waxaysid qudaar kula basal iyo hilibkan shiidan isku soo waxaysid toontan iyo waxaan ku darayaa kabsar caleen wax yar kabsar caleen iyo cusbo marka waa fudud aad iyo aad u fudud yahay sida loo sameeyo ma dhib badna marka inkastoo bahalkan si fiican Soomaali aan u aqoonin wax Soomaali ma balaga aan maleynaa si ila tahay hadaa taqaanid isoo sheegay magaciis ana ma arkin Soomaali kuma arkin waa kan hadda waa diyaar aad iyo aad dab badan u baahna asaga wuu jilcayaa sida oo maxaa la dhahaa cabbage ka kala waa cabbage xataa uu ka jilicsan yahay wax yar oo dabka saarnaana bis horo ka bislaana waa kana hilibkii wixii isku shiilana ku shubaya dhaxda ugu shubaya waa kana ku soo dhax shubay marka hada si fiican u habaysato walaay dhadhankiisa ma xumo oo macaan aad aad u fiican yahay marka wax qudaarta aan la jecleen inta badan ee fitamiinada ku jiraan maxaa la dhahay oo kamid yahay sida broccoli oo kale dadka ma jeclo marka baalkan ma sha Allah asagan uu fiican yahay kariskiisana ma dhib badna faa'iidadiisna way badan tahay marka hala broweeyo sana loo sameeyaa marka wax yar biyo kulul ku soo shubi doona insha Allah si uu isku dhaxgalo hilibkii iyo basashii iyo baalkan isku dhaxgalaan oo isla karsamaan xoogo wax yar wax badan xataa ma qaadana wax yar aad ku sameyn kartaa asaga dhanba marka biyihii ku soo shubay biyo markaan ku soo shubay waa kana hadda waa bisil wax yar la dhiman bas biyahaas ka gursanayaan dadka qaar biyaha yani dheecaan u dhaaftaan bas si asagoo dheecaan leh ugu cunaan dheecaankiisa markaan dheecaanka ka soo dhameynaa markuu karo si fiican uu islaado isku qaleysmo aan ka dejin doonaa insha Allah waa kana haddan wixii dhan waa si fiican isku soo qaleysmay ma sha Allah waxa waaye dhadhankiisana lagama sheekeyn karo ma sha Allah waaye browe waxa laga yaabaa inaad supermarket wax badan ku aragtay ama meesha qudaarta lagu gado wax badan ku aragtay oo isla waxaan leeyahay markuu fiican baalkan aad iyo aad qabowna lagu jiraa hada maxaa la dhahay aad ka heshay ila garay hada qalad ku aragtana commentiga igu soo sheeg dib ma lahaan qofku qaldami karaa haday wax ka qaldan yihiin videoga way soo sheegi kartaa marka kana alaabta saani ku soo baxday ما شاء الله آدي آذان أمها سنتهين داوشدينا السلام عليكم.